الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بإذن الله تعالى درسي wuxuu ku saabsiisan yahay مشكلة الأمن الغذائي للأمة. dhibta ku saabsiisan isku filaanshiyaha cunnada waan jirin. الأصل waxaynu naqaanaa cunnadu inay tahay غريزة min غرائز الإنسان ama waxyaabaha bini aadamka ilaahay uu ku abuuray, baahiyaha alle subxaanaه wa tacaala waa aadanaha ku abuuray, waana sabab ka mida sababaha ugu weynee biqaa'u اljinsi اlbashari, in aadanuhu noolaado. ilaahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wamaa jacalnaahum jasada laa yakuluuna طacaam. ilaahay markuu tilmaamaya ambiyada waxaa la yidhi kamaanan yeelin jasad aan cunno cunin, yacni cid waliba inay cunno u baahantahay baa ilaahay tilmaamayaa aadanaha ka mid ah. hadaagu halkaasuu jooga. amniguna dee waa nicmooyinka ugu waaweyn, waayo cagsigiisoo baqa ahi waa dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dunida ka dhaca, bale aakhire ka dhaca. waayo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka marka jannada la tilmaamayo udkhuluuha bisalaamin aaminiin baa la tilmaamaya. xawaaley waxaan u malaynayaa 12 meelood bay qur-aanku soo aroortay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ilaahay tilmaamayo. sida awgeed qur-aanku waxa uu inooga warramayaa ahmiyada ay shucuubta iyo bini aadamka u leedahay cunnadu, bale wuxuu isku xidhayaa amniga iyo nabadda ummad ee ay haysato iyo istiqraarka siyaasiga waxaa la yidhahdaa deganaanshiyaha siyaasadeed ee ummadi leedahay iyabuu isku xidhayaa iyo cunnada. walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa falyacbuduu rabba hada اlbeyt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قريش markii ilaahay umana sheeganayay waxaa rabbi leeyahay ha caabudaan rabbiga subxaanaه wa tacaala beytkan leh kaasoo aladii أطcamahum min juuc gaajo ka quudiyey, wa aamanahum min khawf cabsina ka nabadgeliyey. sunnada nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyana may ihmaalin qadiyadda tani, si xooggan bay u tilmaamtay. oo alxayaati alaamina almustaqira, nolosha deggan, wuxuu xadiisku ku tilmaamayaa inay 3 rukun leedahay. 3da rukun ee nolosha deggani inay ka mid yihiin buu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man asbaxa minkum اlyowma aaminan fii sirbih mucaafan fii jasadih aw fii badanih cindahu quutu yowmih fakaannamaa xiizat lahu اdunyaa bixadaafiiriha. xadiidka imaamu termedi warinaya, culammaduna saxiixa ku tilmaameen, wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam qofka hoygiisa ama tolkii ama gurigiisii ama qoomkiisa dhex jooga isagoo nabad qaba, nabad haysto aan cabsiyi jirin, jidh ahaanna caafimaad qaba, maalintaa wuxuu cunana haystaa. yacni qofkani nabad buu haystaa, nabaddii guud ahaaneed oo cabsan maayo, jidh ahaanna nabad kaluu haystaa oo uu caafimaad qaba, bale sheegan maayo iyo xanuuntoona. maalintaana wuxuu cuno ayuu haystaa, kaa adduunkaa ku soo ururay buu nebigu ku tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam. haddaba mas'aladan ay yidhaahdaan mafhuum alamni اlqowmi
waxaynu nidhi amnigu guud ahaan waa qofku inaanu dareemin cabsi hadaaguna waa waxuu qofka bini aadamku quuto oo uu enerjiga iyo tamartiisa ka helo mafhuum min amni alghadaa'i markaynu idhaahno markaa waxa weeyaan qofku inuu helo cunnadii uu u baahnaa tayo iyo tiraba inuu ka haysto wixii nolosha daruuriga u noqon lahaa ama isku filaanshiiya inuu halkaasi ka joogo ama baahida bini aadamkee dabiiciga ah ee raashin ku saabsaysan inaanu warwar ka haynin waxay yidhahdaan rakaa'ista tiirarka ay ku tiirsantahay waa saddex bay yidhaahdaan wafrat alghadaa hadadu mid la heli karo cunnadu mid la heli kara inay tahy waanay macduum ahayn ka labaadna waxay yidhahdaan waa alqudra shiraa'iya dadku inay iibsan karaan oo ha la helo cunnadiiyo waa gobolka ama dhulka ha taalle inay dadku awood u haystaan inay gadan karaana iyo inay mustamirto istimraariya inay haysato oo la rajaynayo cabsi aan laga qabin berri ama bisha dambe ama sanadka dambe in la waayayo inaan cabsi laga qabin haadihi rakaa'is الثalaaثa bay yidhaahdaan waa rakaa'ista alamni اlghidaa'i lilumma haddaba cunnadu nabadda qabta waayo bini aadamka maanta jooga xanuunada qaarna waxay dhahaan tacafun buu ka yimaadaa poison jidhka gala ama bakteriyad iyo viruses iyo wax gala inta badan xanuunada waa la daweyn karaa bay yidhaahdaan xanuunada badhna wuxuu ka yimaadaa bay yidhahdaan amraad alistiqlaabiya kuwa yidhaahdaan cunnadaa keena waa xanuunada musminka ee iminka dunida inta badan loo taaglaayay wadna xanuunada iyo dhiigkarrada iyo macaanka iyo maxaa la ydhahaa dhagxantan beerka gasha iyo kuwan gala maraarada iyo waxa la sheegaya tirada badan la xanuuna iyaga cunnaa samaysa yacni quality-ga cunnada iyo noocay tahay ayaa sababe maaha wax kaloo dabad kaaga yimi idan in la helo cunno caafimaad qabta iyo awooddii lagu gadan lahaa iyo istimraariyadeeda in la hela rakaa'isu ah baynu nidhi haddaba dunida gaajada ka jirtaa ma qilatulmawaarid baa ma dunida waxa kor yaalla quudka ah baan aadanaha ku fillayn mise waa suu'u tawsiic bini aadamku siduu wax u qaybsadaan cadaalad ku sugnayn labada waa iyama alasna waxaynu leenahay dunida waxa kor saarin aadanaha uu ku filan yahay inkastoo aynu ognahay aragtidii wadaadkii ingiriis ee raahibka ahaa ee dad badan oona ay daba socdaan robert malthus markii lahaa dadkaa tiro badanayo dadku si handasiya ayuu tiro badanayaa yacni kow laba labado afar afartu saasuu u badanayaa tilmaamayey oo le mawaariduna maba kordhayso markaa wuxuu leeyahay dunida waxay yaallaan dadka ku fillayne aragtiyihiisu aragtiyo cunsuriyo ah dadka badha laga takhallusin weeyaan markaan si kooban u tilmaamo aadanaha dunida ku nool markaa wuxuu arkayaa kawaarista balaayooyinka iyo dagaalada iyo waxa mashaakil dunida ka jira iyo gaajada iyo wax kani inay tahay naxariis rabbi oo xagga rabbi uga timi ama naxariis bini aadamku isu naxariisto badh laga takhallusay sida inta kale u noolaato asalku saakiin wuxuu yahay saa qur-aanku tilmaamayo wabaaraka fiiha waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi dhulka kan ilaahay baa barakeeyey barakadu waa maxay khayr badan baa dul saaran weeyaan waqadara fiiha aqwaataha baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala quudkeeda noolaha kor saarane wixii uu cuni lahaana ilaahay baa ku jaangooyey rabbi saasuu qur-aanka ku sheegay walaqad makannaakum fi lardi wajacalnaa lakum fiiha macaayisha qaliilan maa tashkuruun ilaahay wuxuu leeyahy dhulka ayaanu idin makan siinay wajacalnaa lakum fiiha macaayish macaayish jamcu maciisha waxa ku noolaan lahaydeenna waa idin dul saaray baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ee intaa mahadnaqaysaan baa yar wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha dunida wax daabbada wax socdoo korkiisa joogaa ma jiro
إلا يا إلهي باس كل لازمية أرزاق ديدو أرزاق ديدو ويت الله ولذلك وحن لنا حتى أقومها بني آدمكو مثلا هذين رأيك مالتوست المامني بالكوكا قد يصير رأيك ودنا وحكت المامنو الأزمة الغذائية في العالم والوطن العربي نيكا قري محمد خليفة وحوصون نقلنا إياه dhulka buu leeyahay inuu ku noolay masaaxadiisu yaabisada inta engegani waa 13.2 bilyan oo hektar inta yaabisada ahi inta nus ka midi qaabil lizaraaca maaha that means 6 point something ayaa waxa qaabil lizaraaca wax laga beeri karaa انت قابلك للزراعة اهنا ربع كمدي بل الربع واحد كيرا دافسيسن 25.7% بقول كيف شني الله واتن بقول كيف شني الله واتن دبيع تضبا هنا ودول داق سميد بويدي انت صاحر داي دولك هو ربع مركز واحد منا waxa hadda la beeraa waa 43.5%. waa boqolkiiba 3.4 rubicii intaasaa laga beeray saa daraaddeed waxay leeyihiin dhul badan oo la beeran karaa weli baylaha kaas waa mid culamo kale oo ka mid ah culamada aqoon-yahanada qaar ka mid ah waxay qabaan dhulka aynu ku kulnool lahay xawaalay 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa bay leeyihiin 740 bilyan oo bini aadam uu quudin karaa waliba waa marka la eega bay yiraahdaan mustawaha nolosha maraykanka cidii uun aragtay wax walba saddex laab bay ka cunaan wax kastoo bini aadam liqo yani koobka sharaabka lagu cabaa waa mid yar mid dhexe iyo mid weyn dadku ka waaweyn u bay cabaan mid intan la leeg marka wax walba waa koob inta leeg haddii lagu eega bay yiraahdeen mustawaha jabaniiska dad cunno badan maaha mustawaha jabaniiska haddii lagu eega bay yiraahdeenna 107 bilyan oo bini aadam u quudin karaa dhulka waxa kor saaran bay leeyihiin yani iyaga aragtidooda waxa weeyaan sida maraykanka haddaynu boobnana buu leeyahay oo qofkii maraykanba 3.3 jabaniis u dhigmaa saddex qof iyo waliba dheeraad jabaniis intay cunaan ayuu cunaa weeyaan haddaynu sida jabaniiska bini aadamka u quudinana 107 bilyan iminka 7 baa la sheegaya Soomaha bilyan dunida inay kor saaran yihiin intaas uu quudin karaa bay leeyihiin haddaynu sida maraykanka ka dhignana 740 culamo kale waxay qabaan oo leeyihiin dhulka la islaaxin karo ee dhul beereed laga dhigi karo wixii uu waqtiga dadka quudinaya ihsaayaadkan markay soo saareen mala 5 bilyan meelahaas dadku ahaa 10 adcaafiha buu quudin karaa that means waa tiradii uu tilmaamayay wax ku dhow 50 bilyan oo waliba mustawayaadka sare markay wax u cunayaan bay leeyihiin wuxuu soo naqlinayaa uu leeyahay افتراضات علمية وكلا جرو أورانيا ولا زيادين كرا مساحة الدولك أي قابل للزراعة ويمكن 6.5 ولا زيادين كرا وضعف لبلا بلا جارسين كرا هدي واحد جرونسي في عن لو بيرنا وحي جهدي كرتابو تلمامية 36 بليون بني آدم إلا قودين كرا قولك له علماء ذا كم يدي وحي تلمامية ورلا بقول يلبي 6 بليون وكفلين هي يستوعب ويطعم ويكفي بيليه وقاضى يردلكو وانا قودين كرا وانا كفلين هي سكلا هدا نوت المامنو وحيلين وردل بيرات كما ما هدا تكنولوجي هو هرمري بني ادمكو مركز طبا هرتب ابارها هي غاچادو casriga hadda la joogo kuwii ka horeeya ka abaariya gaajo badnaan jiray marka abaariya gaajo la tilmaamo bay leeyihiin ee bini aadamkuna bidca malaayiin waa ay kaga badnayd laakiin nadariyaha maalta suxana u shaqeyneen bay leeyihiin hadda xataa technology wuxuu gaadhay in wax la beeri karo iyadoo dhulba lagu ridin imka waxa ogtiin in loo beeri karo
biyo iyo chemical quroo la isku daro geedka inta hoosta loo geliyo biyo chemical qura inuu bixi karo aan dhulba lagu ridin oo wadannada qaar hadda wax ku beeraan idan futuuxaadka cilmiga ilaahay bini aadamku markay tiradiisu iyo korodhaba futuuxaadka alla u fura waa tiro badan yihiin waagii hore inta hektarka laga soo saari jiray ama 1 hektar oo dhul intuu quudin jiray imka waxa laga yaabaa 10 laabkeed iyo 20 laabkeedba inuu quudin karo hadda farsamooyinka cusub ee technology-ga marka la isticmaalo waxay leeyihiin biyaha wax lagu beerayo mid engineer wuxuu leeyahay waxa bay la mid tahay waa ka radaaca sinaaciya buu leeyahay soo hooyadu markay ilmaha dhasho haddaan naaskaba la nuujinayo waxaan la walwalaaqa la siiyada uu iska noolaan karaa waa saasoo kale buu leeyahay haddayna dhulkaba wax ku ridina biyaheena iyo chemicalka iskaga ridanno waa la beeri karaa buu leeyahay waa soo bixi karaan sida radaacada sinaaciga oo kale u noqon karaa maxaan weedhaha kan u soo naqlinayaa u tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa aragtidan tashaa'umiga ee quusta bini aadamka ku ridaysa ee odhanaysa dadkii baa tiro bato cunnadaa yaraanayso dunidu way madhanaysaa waxba kama jiraan dadkaa tiro batay dhulkuna waa ku filan yahay laakiin wuxuu u baahan yahay caqligii iyo idaaradii iyo xooggii lagu maamulan lahaa adduunka ee wax lagaga soo bixi lahaa haddaba gaajada jirtee dunida dul taalla waynu ka mid nahay waxay ku timaadaa bay leeyihin suu'i tasarruf wa tadaalum maamul xumo iyo dulmi bini aadamku isdulminayaa ah sabab almajaaca bay leeyihin si kale haddaan u dhigna bay leeyihin alathra greediness hunguri weyni iyo cadaalad xumo iyo takaaful la'aan cadamu takaamul bini aadamku inuu isdheeli tiro takaafulo aanu jirin iyo mawaaridda la haysto si xun loo isticmaalayo wixii la haystay oo si xun loo isticmaalayo ayaa ah bay leeyihiin asbaabi nudra ee ma aha nudro xaqiiqiyo jirta maaha gaajada iyo baahida jirta kuwan baa sababaye may sababin wax la'aan dhulka korkiisa saarane haddaba waxaan leenahay mafhuumkan la yidhaahdo alamni alghadaa'i haddaynu usoo gudubno in si nabada loo helo wax la cuno waa mafhuum qadiim oo bini aadamku weligiiba uu ka fakerayay imikana shuruux cusub oo xadiida yeeshay ummad kastaa inay tijaabiso isku filaanshiiyo waxay liqaysaa iyadoo la soo baxdo kayd yeelata cunneed waa wax bini aadamka meel kasta uu ku nool yahay baa looga baahan yahay inkastoo iminka jaa'ixadan karoonahee dunida ku soo korodhay ay dhibaato cusub soo kordhisay bolisiga dunida yaala siyaasatul qamx ku saabsan cunnada ku saabsanna waa bolisi isticmaariya oo Kissinger العرابي الأمريكي السياسة الخارجية الأمريكية يهودي جدا شيء أركتدي سواها كم ده هيدا وأركيي دول كشدال كهستية وحكرة هذا إنرجي دوني ده قبصة بولاي هاي إننا قلنا وحنو باهنا هنا قبصنا بولاي عند الدنيا ده يبين هذا مكوح ولا قيو سأنو كنترولي كرنو فعلا فقيه استراتيجي عبد الله النفيسي marka uu ka warramayo afarta awoodood ay dunida ku maamulaan nimanka maanta dunida uu burtuurka ah maamula waxa weeyaan buu leeyahay kow waa siyaasat al-khamaat oo ah waxa lagu tilmaamo ugu weyn khamaadka la sheegay raw materialka oo ugu weyn yahay buu leeyahay shidaalka iyo sarreenka labadaas ay gacanta ku hayaan buu leeyahay shidaalka dunida iyagaa soo saara iyagaa suuq geeya iyagaa iib geeya qoladan dhulkooda laga soo saara waxay cunaan baa laga siiya iyagaa haysta iyagaa leh waxay kaloo leeyihiin cunnada dunida sarreenkana iyagaa gacanta ku idinku waxbaa beerinaa la yidhi hadday beeraanna suuqa laga saara annagaa idin siinayna wixii aa cuni lahaydeen annagaa idinka iibinayna markaanu doonnana annaga ku cuno qabataynayna oo kaa joojinayna ilaa intaad baktiyayso ama aad warkayga u hoggaansanaanayso saddex shay oo kaluu tilmaamayaa markaasi oo hubku ka mid yahay oo majlis al-amni iyo waxaan united nationka la sheegayaa ka mid tahay
أو كمدي هاي محي الثقافة جامعات كي علمك يا قونت يا تكنولوجي يا ميديا يا واحد بس عضها اسكو صوت ضوضوب وحين لنا ما أنت الأمن القومي ومدى إلادة هي الأمن الغذائي وقضية استراتيجية وأرن أن كفتن كجلين وأرن أمد ولبين السحر وجن وقفكرته أي تاجنت هاي إن دنيا وحسوسار كذا بيد هذان خيرات كذا طبيعي بني آدم كو صوصار الدنيا يالا بقول كيف سيدته واحد بني آدم كو صوصار بقول كيف الله باتم بني آدم كم يدعونا أنت كلا والله قاعد سيا بقول كيف دوري لا 10 مليون 25 مليون وحكا بدننا قاعد يود أنت بيدان سلام راكم واحد هذان خيرات كودن كولية بقول كيف الشمبا قعنتك وهي وعن فيليا ولبا إحسائيات كان قديم يهيني إني هدا كيرتي بقول كيف السقاشن إنك بدننا يعني بقول كيف سقاشن خيرات كودن كشمبا هيستا markaynu soo dhaafno ixsaayaadka iyo wararkaas oo dhan dunida qadiyada cunnadu waa jawic kalbak yatbacuk eygaaga gaajisay bay yidhaahdaan ha ku dabagale eygu hadduu dhargada iskaga ka tegaya laakiin haddaad u siido salada wuxuu ugu jiraanoo kolbaad wax u tuurayso oo ku daba soconaya ha hiya siyaasa raashinkee dunida maanta taalla waa shucuubta in la gaajaysiiyo si ay u hoggaansanaato gaajadu sideedabana inxiraafaad tiro badan baa ka dhasha qallooc badan bay wadataa oo nebigu muxuu ku tilmaamayay kufrigu faqrigu inuu kufri noqdaa buu ku dhow yahay walidaalik inxiraafaad bulsheed oo ijtimaaciya ka dhasha bale dowladaha waa loo taliyaa oo kuwa yidhahdaa man laa yamlik quuta laa yamlik qaraara qofkan wuxuu cuno isagu haysani go-aankiisa male bay yidhaahdaan go-aanka cidda wax ku siisaa leh waxay tilmaamaan gaajada iyo faqrigu hadduu tiro bato ijraamkaa tiro bata nabaddaa la waayaa tuugadaa badata ammaana xudanaabadaa badata akhlaaq xumadoo dhan baa bata crimekaa bata waxaan oo dhammi waxay la socdaan waxaa ka mid a waxyaabaha buunbuuniya gaajada bal dadyaga qaarkood waxay ku kalifaanba inxiraaf caqadiya oo gaalkoo waxaystana markuu arkayo muslimkoo gaajo ku madhay dee waxaaba is odhanaya war mala xaggaasaaba saxu jira xaggaasaaba barakadu taallaa iyo dadkii wax lagu haystay mushkiladda gaajadu bay yidhaahdaan ama insaanka sidiisaba bini aadamka mashaakilkiisu bay yidhaahdaan isagaa jaaniya isagaana daxiya waabay yidhaahdaan dhibbane iyo dhibba ka dhibta geysanayaana waa isaga kay dhibtu ku dambaynaysaana waa isla isaga bay tidhaahaan haddaba mashaakilka dunida yaalee cunnada ku saabsani waa mashkila falsafiya ku saabsan qaabka wax loo maamulo ku saabsan qaabka wax loo qaybsado ma aha mashkilad asal ay u tahay mawaaridda oo yar waxay yidhaahdaan baa caalam alcarabi ama caalam alislaami in badanoo ka midana saddex shay ayaaba ugu muhiimsan bay yidhaahdaan nuqsaanta haysata midi waa naqsulintaaj wax soo saar yarida dadkoo iska fadhfadhiyo aan rabin inay wax soo saaraan ka labaadna waxay yidhaahdaan waa inta wixii la soo saarayna faaqidkaa badan inta luntaa badan bay yidhaahdaan oo farsamada ama loo istoodhgareeyo ama loo kaydiyo ama loo ilaaliyo ama baan jirin haddaynu sanadkan tamaandho waddanka ay hargeysa si fiican uga baxdo waa 2 bilood uun inta la cunayaa ee ugu badan wixii ka dambeeya waa in quruntay iyo in la tuuray iyo in qaabka loo soo rarayo markaa iyo qaabka loo istoodhgareeyo waddanka dhammi ma laha meel wax lagu istoodhgareeyo meel cunno lagu istoodhgareeyaba ma lihin waddankoo dhammi meel cunno lagu istoodhgareeyo ma lihin oo saalix u ah bakhaarka un bariiska engegan lagu gura baynu haysanaa idan meel loogu talagalay waa cunno bini aadam in lagu istoodhgareeyo ma lihin saa daraaddeed waxay leeyihin wax soo saarkooda
15 ilaa iyo 23 ayaa waxay ku lumaan systemkaasi wax soo saarka waddanku uu sameeyo boqolkiiba 15 ilaa 23 in loo gaadhaya waxay ku lumaan maxay system xumida qaybta labaadna waxay dhahaan waa hidaarka waa dadku siday u daadiyaan wax cunnada la qubo ama tan dusha la iska saaree tirada badan leh cunaan aad u baahnayn haddaad cunto dee waad qubtay dunida waxay yidhaahdaan dad saddexdii qof ee dunida ku noolba mid baa suu taqdiya haysataa bay yidhaahdaan saddex qof oo kastoo dunida korkiisa maraya mid baa cunno xumo haysataa midkan aynu sheegaynaa cunno xumadu haysato waa labada daraf bay yidhaahdeen midna way ku yaraatay dabeetana wuu u bukaa midna way ku badatay dabeetana wuu u bukaa labadubana way bukaan waa boqolkiiba 30 bini aadamka dhulka kor saaran bay leeyihiin baa suu taqdiya haysataa suu taqdiya haystaa waa maxay midna waxaan caafimaad qabin ama aan fiicnayn ama buu isku badiyo cunay dabeetana dhiikar iyo kolestarool iyo sokorow iyo dhagax iyo baliya baas baa galay iyo samna baruur oo waxa la yidhi hadhowna boodbood oo lacag kala bixi oo iska rig inta ku saaran midna gaaj ah haysata idan waxa yaallaa bay leeyihiin saddexda ugu daran ee caalamka saddexaad aynu ka mid nahay yaallaa waa imaa inuu marka horeba wax soo saarku liito dadku aanay wax soo saarayn ama inta ka lumaysa wixii ay soo saareen ay tiro badantay ama inta muhadarka ee ihdaarka lagu sameeyey la lumiyey ee noocyadka kale aynu sheegayno loo lumiyey ama qaabka loo isticmaalayo aanu ahayn qaab saxa midalan caalamka carbeed bay yidhaahdaan boqolkiiba 60 biyaha isticmaalaan waa muhadar bay leeyihiin waa si aan caadi ahayn baa loo isticmaalay waa si ka yar baa loo isticmaali kari lahaa saa awgeed waxaan leenahay dunida wax la'aani ma taalo mar kastoo aadanuhu soo bataba ilaahay cilmi u furay mar bay dunidu dhir shidanaysay inagu weli halkaasaynu taagannahay enerjigeenu inuu weli dhiriyey ummadina ma horu marto horumar ummad kama suurtagal aha laba shay oo la helo mooyaane biyo iyo nal inay ka dheregto energy ummaddii aan energy haysan horumar kama suurtagal aha weligeen baa aynu soo khudbadayso akhrinoo sheekayno waxaynu cabnaynu laanay xaggaynu ka horumarraa waxaynu shidannaa ama energy aynu isticmaalana waa la'nay laa gaas walaa laydh walaa waxba toona weli geedkii baynu gubaynaa shidaynaa horumar iyada daa markaa casrulxajari baad nooshay wakhtigii dhagaxa waxay yidhaahdaan aadanuhu noloshiisu waxay u tatawurtay tiradu markuu yaraayo koowaad geed buu shidi jiray bay yidhaahdeen ku noolaa kadib buu ka soo gudbay steam buu yimi albukhaar markuu maraakiibta iyo waxa kan iyo steamka lagu kaxayn jiray bukhaarka la isticmaali jiray kadib buu ka soo gudbay wuxuu yimi alfaxmi alxajari dhuxushii la soo qodanayay dhagaxa ahayd dhuxul dhagax haddii la soo qodayay oo dhulka hoostiisa laga soo qodayay kadib buu ka soo gudbay dabeetana shidaal buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana gaas buu la soo baxay kadib buu ka soo gudbay dabeetana taaqa sinaaciya daaqada la abuuro buu samaystay sida nuclear energy iyo chemical energy waxyaabaha kan kadib buu ka soo gudbay dabeetana wuxuu yimi daaqada aan nuduubku ku dhicin tan cadceedda iyo dabaysha iyo badda karansigeeda iyo laga dhaliyo kuwaasi ma go'aan dee cadceeddu markay dhammaato dee dunidaa dhammaanaysaa idan dunidu waxay leeyihiin mar kasta oo aadanuhu soo bataba ilaahay futuux cilmiyo cusub buu u furayey taasina waxay sababaysay inay noloshoodu kor u socoto tiro badnidu inaanay nolosha dib u yaraynine inay ahaato mar kasta tiro badnidu wax fiicnaysiinaya dunida oo ay nolosha kor u socoto laakiin inagu dee weli waxaynu taaganay maxay alcasri nabaati xataa casri alxajari maynan soo gaadhin casrigii nabaadka geedka la shidayey mushkilatu alqadaa waa mushkila taariikhiya waxaana laga yaabaa inay ka mid tahay waxyaabihii dagaallo badan oo dunida ka dhacay dagaallo dhaqaalay ahaayeen ama siraac tabaqiya ixtikaarkan caalamiga ee cunnada lagu samaynayey isticmaalkii dunida gumaystay wax badani ilaahay qur-aanka wuxuu ina leeyahy wafi الsamaaءi risqukum wamaa tuucaduun
إلهي وابلن قاضي أرزاقه ضمان الرزق قرآن يا حديث وحينات المامة من الله إلا قبلن قاضي لكن معناه يدو ماها تواكل معناه يدو ماها اسكفر فريست أرزاقه ويمان إسايه ما لا يكون قرنتي ما جرته هذا اللي يدي اسكفر فريست أرزاقه هي ليساني ما لا يكون قرنتي ما جرته وحا اللي ينيري من أحيا أرضا ميتة فهي له dhul dhintay qofka nooleeya ee wax ka beeray wax ka soo saara innaguna intaynu bannaanadii ilaahay oo dhan weegaaranay ayaynu xataa neefkii daaqaya u diidnay waxna kama soo saarno sharciyan maad mulkinin weligaaba dayr ku wareejiyo dhan anigaas kale waa dayr naf loo macno samaynayo mashaakilka yaalla markaa wuxuu yahay waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa فسادinta la fasahaadiyo ama dhirta ama xoolaha ama nolosha ama waxa kani ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أهلا نوح نبي نوت المامية لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة قفك مسلم كاي وحما بيره جيد متاغو أما الزرع مدلولك كمرده وبني آدم معونه أما حولبا معنان أما عدؤون معنتبو نبي قوليه إلا هي صدقات بيوتي وحاسوا الديرجالين لديرجالين يقفك مسلم كاي إنه وحبير بل وحكوا في الحديث كي النبي يقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة هذه قيامه حقا كصوصا قرأ ودعوه وقعنت أتكوها يسجد تمراد لأبقالي كروه فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها هداد ودو قيامها إن تكجر سين كرتو حبد داس جيت كايرين بيرتو بير بو النبي يقول لذلك بعلماء دو حيد هدان غرسها عباده جيت كبيرستي عبادة ويا إنسان كبيرها يتعبد بالعمل شقدوا إلهي كعابده إلهي شقدوا وقد هذا هذا بقى أيها الأحبة درس جنوح كسب سيسيني إشكالية تنسيدين له حليلية لبتن ملقى بحكرة ها odayga aqoon-yahanka ee yuhuudiga ee maraykan ee macruufka ah linguistica ah ee la yidhaha nacum shomsky waa nin aqoon-yahana siyaasaadka reer galbeedkana ragga ka soo horjeeday leftiiska ah ka mid ah ayaa wuxuu leeyahy weedh caan oo la yidhaahdo laa yuujad shay ismuhu baled faqiir yuujad faqat nidaamun faashilun fi idaarati mawaarid albaled buu yidhi dunida kama jira buu yidhi dhul la yidhaahdo waa dhul faqiira dunida ma jira buu yidhi ee waxaa jira nidaam faashila oo maamula mawaaridda waxa ay bini aadamku hantida haystaan nidaam faashil oo maamula unbaa jira buu leeyahy laakiin waddan faqiiri ma jira buu leeyahy macnaheedu waxa weeyaan aadanuhu gaajada farsamo xumidiisaa keentay ee dhulkiisu ma keenin buu leeyahy dunida kuma yaalla buu leeyahy dhul aan dadkiisu aanay wax cuni karin laakiin systemkay u nool yihiin ayaa ah ka dhibta jira anugu caawa kama warramayo qadiyadda tan technically dee kaa culammada ku takhasustay inooga warrami beeraha iyo saa wax loo beerta iyo saa culammada ku takhasustay laakiin waxaan ka warramayaa xalku taqniga ahi wuu dambeeyaa ee waxaa ka horeeya nudrada waxa keena oo dadku inay nabadda cunneed waayaan cunno ku filan in bini aadamku waayo waxa keena siyaasadda waddan uu leeyahay iyo thaqaafada ay haystaan intaan loo tegin masalada tiqniyada iyo cilmiga iyo farsamada loo tegin farsamadu bini aadamku waa wuxuu soo heli karo waana wax la baran karo farsamo kastoo dunida taalla waa la baran karaa waana la soo heli karaa cid taqaana ama waddankaaga gudihiisa ka hel ama dabadiisa ka soo hel waa la heli karaa laakiin mushkiladdu waxay ka jirtaa culture-ka bulshadu ay haysato iyo qaab nololeedka ay rabto inay u noolaato
iyo siyaasadda maamuleed ee ku saabsan cunnada waddanka dadku siduu wuxuu cuno u heli lahaa siyaasadooda maamulkooda sare uu leeyahay marka siyaasadda maamulka sare leeyahay ka warramayo dad badan waxa laga yaabaa inay dawladda markaa meesha joogta iyo mucaaradka ka soo horjeedo oo yidhaahda dawladdan wartaa kama warramayo waa iliidkeenna oo dhammi siduu rumaysan yahay ama kuwa hadda jooga ha noqdaan kuwa soo socda ha noqdaan kuwii sii tegaya ka sii baxay ha ahaadaan kuwii inoo soo bilaabay isku kee wada dar maaha kuwa hadda jooga waxaynu emphasize-ka saaraynaa waa iliidkeenna waxaynu ka warramaynaa dadka hoggaanka inoo hayay ilaahay intaynu xorribad qaadanay ilaa 60-kaagii ka soo bilow dadkii hoggaanku u hayay iyo kuwa hadda u soo hanqaltaagaya u soo socda marka waxaan leenahay ummaddeenna hoggaanka qabatee iliidka ahi siyaasadda ay ugu talagaleen inay ummadda tani cunno ku filan ku hesho gaajo kaga baxdo iyo kaljarka dadku rumaysan yahay ayaa caqabadda koowaad ee hortaagan inaynu gaajo ka baxno marka mushkiladdu waa mushkilo insaaniya ma aha mushkilad dhulkeenna ku saabsan dhulkeenna maxay odhan jireen nicmaa fadhida nicmaa ceegaagta waa iska ceegaagtaa xaqiiqada waa kaa dhulka ilaahay dadka siiyo dhan bay ceegaagtaa laakiin waxa qaldani waxa weeyaan dadkan ku kor noolay siday u fakerayaan iyo siday wax u maamulanayaan waxa qaldani waa kaa walidaalik aan tusaale yar koobgan idin siiyo bulotinada dawladdu soo saarto maalan waxyaabihii aynu soo dhoofsannay January ilaa June 2019kii oo bulotin dawladdu ay faafisay wixii aynu waddankan soo dejinnay laga bilaabo waa 6 bilood oo qura oo 2019kii ka mid ah waxaan aad ula yaabo waxa ka mid ah waxa ku qoran digaagaynu soo dhoofsannay chicken meat 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 413 oo kiilo iyo hilib digaaga 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 646 kiilo oo kalluuna 6 bilood baa waxaynu soo dhoofsannay 5 milyan oo litir oo caana ah waxaa la walaaqaya 6 bilood ayaa waxaynu soo dhoofsannay in ka badan 10,000 oo dersin oo beeda beri waxaan filayaa 1986 meelaha inay ahayd mise 87 January mid bay ahayd ayaan Jabuuti tegey dabeetana waxaan arkay Jabuuti oo naalada waa beedka Yemen iyo Faransiiska laga keeno markaasaan aad u yaabay waddankan dhan beedkii cuna lahaa laga keenayo dabadda haddana maalin dambe tareenkii xumaaday Ethiopia ka iman jiray arbacadu tareen xawaashka la yiraahdo iman jirayo khudaarta wax lagu karsado dhan waaga aad baan u yaabanaa ma waddan jira ayaa khudaartu cuna iyo beedku cuno dabadda looga doonaya taanigoo ka yaaban baan halkan toon u baahday toon baan soo iibsaday dukaankii toonta iibinaya waxaan ku idhi toon yarro qurux badan u baan koon 7 kiilo isugu xidhan oo isa saaran maasaan ku idhi waar toontan xagee ka timi toontan markaasuu igu yidhi China ma intaasoo 1 kilomitir bay inoo soo lugaysay xabad tooni waa toon xabad toona oo hargeysa lagu dhex iibinayo oo China laga soo raray oo markab la soo saaro dhowr bilood soo socotay hadda dhowrka bilood way bixi lahayd hadaynu ku ridno dhowrka bilood ee markabku soo socday way bixi lahayd hadaynu dhulka ku ridno idan aqliga keenaya in xabad toona ama kamsare ama wax la mida lagaaga keeno dabad waa wax aad u cajiiba waxaan eegay إحصائياتك الدولة الصوصار تبان هيك بلغات هذا اللي ينوكينه مركان إحصائيات كان كور رميو كما ور رميو وحي سوق مدول لغو كينو
kama warramayo waxaynu qiimaha intaynu dawladda been u sheegno oo aynu si kale u soo dhaafino ama wixii cashuur dhaafka aynu ku keennay ama wixii xuduudaha tirada badan le ka soo galay waxaan ka warramayaa qaadka qure ka soo gala maxay galbeed ka soo gala ee halkan lagu soo cashuuro 6 bilood ayaa waxaynu cunnay 9 milyan oo kiilo waa 6 bilood waa 9 milyan 264 455 kiilo oo qaada 6 months ayaa intaasoo qaada aynu cunnay oo Ethiopia laga keenay waxa meesha intaasi waa intay dawladdu cashuurtay laakiin dee xuduudda dheer waa taqaaniin ilaa halka ka soo gala qaad meel walba baadiyo dhan buu gobollada baro dhan buu tagaa meel kastuu tagaa waa Soomaali weyna kama warramayna waa intan yar aynu joogno ayaan ka warramaynaa ayaa uu soo galay 9 milyan oo kiilo 6 bilood la cunay how much ba ku baxay idan mushkiladani maaha mushkilad yar dadku say u sawirayaan ma haddaan akhriyo dhaatada halkan ku qoran ee ay dawladdu soo saartay waad cajabi lahayd dadka waxaa cunaya GDP-geena waa imisa wax soo saarka waddankuba waa imisa 2002 World Bank iyo dawladdu waxay soo wada saareen inuu ahaa 1.4 billion wax soo saarkeenuba kuwa hadda ugu badiyaa waxay yidhahdaan 2 billion laakiin masaadir weliba sources aad loo ictimaadi kara maaha laakiin World Bank iyo dawladdu kay soo wada saartay wuxuu sheegayaa intaa waxay sheegayaan ihsaayaadka qaarkood cajsiga مثلا ihsaayada hore dawladdu soo saartay deficitka ku jira tijaaradeenna waxaynu soo dhoofsanayo waxaynu dhoofino 205 milyan ayaa 6 bilood gudahood deficit ku yahay almost waa 5 nus bilyan deficit aynu ku jirnaa lacag ku dhadhow say tilmaamayaan taa macnaheedu waxa weeyaan iyadoo beer capital wax soo saarkeena iyo dadkeena marka loo qaybiyo waxa ku qiyaasaan qofkiiba $347 ba sanadka dhan kugu soo hagaagaya dad minis maalintii $1 ma heshid sanadku waa imsa maalmood 365 waddankan aad joogto wax soo saarkiisu maalintii qofku $1 ka yar buu soo saaraa weeyaan marka loo qaybiyo xisaayaadkan aynu hayno waxay dhahaan Somaliland marka loo eego waa waddanka afraad ee dunida ugu dambeeya wax soo saarka 3 baa iraga sii dambeeya iyana baktiyay waa Malawi iyo Democratic Republic of Congo iyo Burundi 3daas ay naga sii dambeeya marka la eego investmentka level of investmentka approximately waddanka 180 baynu nahay waddanka 180 dad minis 179 waddan baa inaga horeeya runtii ihsaayaadkan ama dawladdu soo saartay ama World Bank soo saaray ama waxa kale soo saaray wax la akhri karaba maaha Soomaalida kalena waa isku wada nooc isma dhaanto Soomaaliya guud ahaan waxay leeyihiin midhaha waxay soo sistaan oo qura agricultural importku wuu 18 jeer laabmay 1980 intuu ahaa si kale waa 1.5 billion ayay annually wax soo sistaan nooca ku saabsan Soomaaliya guud ahaan marka la eego waxaynu soo iibsano مثلا boqolkiiba 8.8 waa tobacco waa sigaar halka waxaynu mishiin soo iibsano dhan tubaakadaynu iibsanaaba ka badan xataa sokortaynu iibsano tubaakadaynu iibsanaaba ka badan saama filaysa Soomaaliya marka la isku daro sokorta la keeno waxa ka badan tubaakada la keeno sokorta la keena waa 6.44% bay leeyihiin laakiin tubaakada la keena waa 8.82% waxa waddanku soo dejiyo waa ITC 2018 waxay soo saartay أيها الأحبة
iyadoo dunidu loolankaa ku jiro inaan aynu halkaa joogno ayaa saadaasha mustaqbalku maxay tahay nimankii dunida beejka madow u shidi jiray waxay leeyihiin dadku wuu badan doonaa gaajaduna waa la badan doontaa baahida cunnada ee dadku wuu gadan doonaana boqolkiiba 50 2030gan dhow boqolkiiba 50 baa cunnada la gadashadeedu ay badan doontaa numuwiga zaraaciga ee la socdaana bay leeyihiin ma badna cunnada bini aadamku uu soo saaro thuluth ka midana muhadar bay noqon doontaa sida aynu sheegnay waaxid min kulli halaathana suu taqdiya buu ka caban doonaa reer magaalnimaduna waa soo badan doontaa oo 2050ga waxay leeyihiin dunida dadka ku nool boqolkiiba 70 reer magaal bay soo noqon doonaan that means beerihii iyo baadiyihii iyo xoolo dhaqashadii baa laga soo guuri doonaa magaalada la iman doonaa kuwanina waa suu nadiir dambe intay hadda joogto markaa way kasii faal xumaanaysaa bay iyagu sawirayaan haddaba haddii mashaakilkaasi jiro kow mashaakilkan waxay leenahay waa mashaakil siyaasiya oo siyaasadda waddanku uu leeyahay waa mashaakil cultural ah oo dadaan geed ay gooyaan mooyaane geed beeraynin naqsi lintaaj wax soo saarkooda aada u yariyey intay sheekeeyaan ay ka badantay intay shaqeeyaan marka dambena aan system waxay u store garaystaan ama wax u kaydsadaan ama wax u ilaashadaan lahayn suluukiyaadka iyo kayfiyatul istihlaakuna uu qaldan yahay waa dhib laakiin dhibta ma laga bixi karaa ها الأستاذ عز الدين عمر بروفيسور كاميدا بروفيسور رضا لقى وحيابها كان الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية أي وحوليه هي تعبير كانوا فيرسو زيادة الإنتاج عبادة وتغيير نمط الاستهلاك الزهد ومحاربة معوقات الإنتاج حسبة وردم الهوى بين الأغنياء والفقراء التطوع وهذا لا يقوي عليه إلا منهج مقتبس من النور الإلهي ولا يوحصوصار كله كردية وعبادة بيراها كان يوحل بيرية والنوع من العبادة دوقفوه تلقلوه كالجر كاينو نولي أما سي قلدان وحلو عنايا أما وح قلدان لعنايين وحلقا بدلنا والزهد بولي waxaan u baahnay inuu tiro badan leenaad isku gurin waxyaabaha intaajka is hortaagaya mucawaqaadka ku ah obstacleska ku ah la dagaalankooduna waa xisbadii diintu ay ka warramaysay fuqarada iyo kuwa waxaysta waxa u dhaxeeya in la soo yareeyana waa qadiya iimaan iyo tatawuc iyo waxbixin iyo takaaful ku salaysan waxaana ma samayn kara buu yidhi manhajka alloo la qaata mooyaane waa khabiir ninkani ka mida khubarada waaweyn ee brofesorada waxaan dhigaa laakiin wuxuu leeyahay systemka qudhe waxaan wada dabooli karaa waa system islaamiya laakiin systemka islaamiga aynu sheegaynaa muxuu u baahan yahay ma inaa masaajidda soo buuxisaan buu u baahan yahay salaad badan tukataan nacam haddaad ilaahay xoog u baridaan ilaahay waa idin arsaaqaya laakiin dee ilaahay masaajidka fadhiisto ay barya ma odhan beriiskaa soo daadanaya kuma taallo qur-aanka kuma taallo ee wuxuu u baahan yahay adawaatul intaajkeenna inaynu wax ka bedello dadku siduu u fakerayay qaab nololeedka in wax laga bedelo wax soo saar ummad leh inaynu noqonno taasi waxay u baahan tahay buu leeyahay kow in la helo markas cilmiya oo daraasaat alamni alghidaa'i baadhitaan ku sameeya innaga aqoonta aynu baranaana maxay u badan tahay jaamacadkeenna maxaa lagu dhigaa inta ugu badan leh dee sheega business management maxaa businessaynaysaa gaaja u waqtiyaysaa yani inay wax soo saar la xoojiyo waa mid ka labaadna waa qadiyatu takhtiit buu leeyahay mustaqbalka siyaasadda dowladda iyo ururada madaxa bannaan iyo bulsho weyntu inay yeelato khita mustaqbali oo ah dadka kani sida ay faqriga uga bixi lahaayeen innaga khitadeenna waa maxay waa hay-aadku dunida hana soo gaadhaan iyo socankaa ma aha
dawladdu NGO-yada ha ogolaato NGO-yo badan ha la keenay war waxaas dadka sii gaajaysiiyaa beled ku dhergay lama sheegin qoladan cadcada meelahan maraysa waxay wadaan dunida waddan intay tageen dhergay lama hayo faqrun baa la sii qaadaa waa kuwa afartii neef adhi ay dhaqan jireenna intay ka soo ururiyeen buulasha u ageeray yidhi waxba laydinku siinaya gaajaday beeraan walidaalika waa axaduhum baa qoray buug la yidhaahdo maxay sinaacat uljuuc buu qoray midi buug la yidhaahdo gaajada samaynteeda sida gaajada dunida loo abuuru ka warramaya iyaga maagi mayno dee waxaynu leenahay lama sitaane waxoodii bay sitaan soo maaha qaar baa yidhaahdaa waynagu dul cunaya muxuu ku dul cunaya in adeerkii muu ka soo qaatay waxoodii bay sitaane waxaad uga hadleeday ma sito waxa u baahan inaynu fakarnaa wuxuu yahay inaynu inagu wax la soo baxno nin baa wax soo qaato cunaya war maaha waxaynu u baahannahay waa maxay waa inaynu inagu keena kan wax kala soo baxno inaynu takhtiid samaynaa baynu u baahanay haddaa daraaso kooban lagu sameeyo fii suurati yuusuf qisatu nabiyullaahi yuusuf waa min axsani alqisasi fi lqur'aan waa qiso runtii adab leh oo cilmi leh oo akhlaaq leh oo bulsho leh oo fan kastoo cilmiyoo laga warramo ka warramaysa qisadaasi nebi yuusuf waxaa ka mid ah riyadii ugu dambeeyey oo xabsiga ka soo saartay riyadii ugu dambeysay oo xabsiga kaga soo baxay yuusufa ayuha sidiiqu aftina fii 7 baqaraatin simaanin yaakuluhunna 7 cijaafun و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون إلا يلقى قاري وفيه يعصرون قصة إلهي وحكا ورميا تخطيط يودجيي نبي الله يوسف عناصر التخطيط الاستراتيجي الغذائي دمان تدبي لهيد بيلي أو حكا ورميا سيدا وحلوك كيديو عناد الله كيتصده إيو intaajka sida loo fiicnaysiiyo iyo istihlaaga sida loo tarshiidiyo ayuu ka warramaysaa qisadu waxay ka warramaysaa 7 sannadood in wax la beerto markuu fasiray oo si fiican wax loo beero dhulka waxay ka warramaysaa wixii la beertay sidii aanay u baaba'een loo kaydin lahaa ee kayd uu geli lahaa waxay ka warramaysaa waxa la cunayo istihlaagka sida loo tarshiidin lahaan si xun loogu falaadeen innaga marka caanuu bataanna waa la qubi jiray marka jiilaalkana waa la gaajoon jiray saxiixa ma ahay yacni waa dad wixii ay soo saareen kaydsan kari waayey farsamo garan waaye ee u kaydiyaan yacni caanaha geela haddii halkaa la iska dhigo oo ay karuuraan oo markay karuur dhaafaan kolba biyuhu laga shubo oo faarkoo qura la reebo faarku waa canaboodhe dabeetana way wadhaan carabtiyo way engejiyaan aqadkay sheegaan waa kaa ana geeleenna caadiga ee la daadinayay haddii inta halkaa la dhigo uu karuuro kolba biyaha un laga daadiyo karuurka soo hadha la faarka fudkiyo faarka soo hadha la wadho oo la engejiyo dabeetana haamaa lagu cabaysta canaboodhu noqon lahaa hadhow biyuunbaa lagu dari lahaa laakiin dadku haddii aqoontu ay baabbaha noqoto documentary film baan daawaday ka warramaya neef aan dhalin oo geela oo niman carbeed caana ka maalayaan weligaa ma maqashay hal abeera oo aan dhalin oo caana laga maalayo intay hashaa farsameeyeen oo waaleen bay ka dhigeen inay dhashay oo dabeetana neef yar waa ka xidheen oo sankii afka farsamadii siday u wadeen waa maaleen un hashii markii dambe يعني بني آدم كو أقونتو يسدري بني آدم سيدا أوجد نبي الله يوسف قصدي سوحي تلماميسا سيدي وحلوك يتسن لها يا سيدي وحلو بيران لها يا استهلاكا سيدي لو إرشادين لها سفي عن بني آدم كو استعمالي لها ألمن الغذاء مركها وقد يضل ما مولك روح رنتي wax badan oo aan soo qoray waa hayaa laakiin waqtigu salaadii waa gaadhay waxaan rabaa inaan war ku soo koobo dunidu loolan bay ku jiraan loolanka ay ku jirto duniduna say u noolaan lahayn bay u noolamayaan
bini aadamkuna baryo kuma dhergo dowladnimana kuma dhisanto waxaynu u baahannahay bulsho ahaan culture-keenna inaynu wax ka bedello dowlad ahaanna siyaasaadkeenna oo investment iyo wax soo saar inaynu wax ka bedello wax dad dhul intaa leeg haysta oo roobu da'o oo gaajoonaya ceeb weeyaan dad dhul intaa leeg haysta oo basal iyo baradho iyo yaanyo iyo xataa quuto daruurigii kale dhaaf waxaas waxay soo dhoofsadaan la soo degaan waa ceeb runtii maha wax laga warrami karo waan iska dhaafay wixii ku saabsanaa xisaayaadkii vegetableska iyo waxa kan ku saabsanaa ee dawladdu soo saartay oo iska daayay waayo waa ceeb ummad wax haysato baahan oo wax kasto ay liqdo le dabadaanu ka keenaynaa xataa waxaynu cunno waxa ugu badnaan jiray canjeelo waxay maraysaa canjeelada wixii laga sameynay in dabad laga keeno waxa ugu liita dunidana aynu quud ka dhiganno daqiiq cad iyo bariis iyo baasto saddexduba sumtooda ay ka badan tahay waxtarkooda caafimaad lahayn wax soo saarkeennii garow iyo galley iyo maxaa la yidhahdaa digir iyo wax la midana ma jiro ma soo saarno haddaynu soo saarnana dee farsamaynaan u garanayn xataa bariiska waa layna baray saa loo iska dhex kariskareeyo wax cunay weligiin ma leediin garow isku dhex karisaa dunida waxaad helaysaa garow isku dhex karisaa oo hilib lagu kariyey maraq oo aanad ka go-aynin markaad cunto laakiin waynaan garanaynin innagu farsamo waxaynu ka taaganay dheri inta dabka la saaro biyo lagu shubo biyahaasi markay kululaadaan wax lagu rido biyo kululun baynu wax ku ridanaa soo maaha hilib cad ku rid bariis ku rid baasta ku rid oo biyo la kariyey waayo waa qondaro يعني soomaalida meelaha ugu faqrisan kijadooda kamida bay yiraahdaan waa min afqar الناس kijadooda ay faqirtay ma aha wax la cunaa inaanay oolin waa wax la sameeyaan la garanaynin waayo cidna wax lama barin marka ayuha alxibba innaga gaajayna ma haysee farsamo xumaayna haysa aan dib u fakarno وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين